السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan intiina goobta isugu timid waan idin salaamayaa. salaanta kadib haddii aynu nahay Soomaali meel kasta oo aynu joognaba isku dambaynu nahay, isku diina waynu nahay, isku dalla waynu nahay inkastoo layna kala qaybqaybiyay. marka waxaa waajib nagu ah inaynu diinteennii midka ahayd wada haysanno, dalkeennii la kala qaybqaybiyeyna aynu isku dayno inaynu isku meel isugu keenno. anigu magaca la sheegay reer Ogaadeeniya anigoo ku hadlaya haddaanu nahay dadka xagga ka soo jeeda weliganno iyo allahano sidii naloo uumay waxaanu u ordaynay eenu u dhimanaynay eenu u oomanayn eenu ku rajo qabnay eenu u soconnay waxay ahayd ummad Soomaaliya oo mid ah in la arko. annagu xabashidantada xaggan Soomaaliyadii xorta ahayd muddada yar lugta kula jirtay dhibaatada aragteen u geysatay baanu weliganno ku macnaha ama nahaysatay ama aanu daris laahayn. waxaa laga yaabaa dhalinyarada Soomaalida xorta ka timid aabbayowgood iyo awowyaalkood inayna dhibka xabashida dhadhaminin, laakiin annagu awowyaalkanagii iyo aabbayaashanadii iyo ilaa annagu dhibka xabashida weli macnaha waanu ku jiraa. taa macnaheedu Soomaali aad baan ugu cilqabnaa oo sax inaanu aragno. anigu waxaan ku dhashay magaalada Dhagaxbuur la yiraahdo, waxaan ku koray magaalada Qabridahar la yiraahdo. 13 jir anigoo ah baa waxaan damcay inaan arko calanka Soomaaliya meel uu ka suran yahay. iskuulkii taan ka cararay baan Hargeysa tagay, calan nooc kale aan ugu tagay oo calankaan sawirkiisa arki jiray waan ka soo waayay. Hargeysa waan ka soo noqday kadib baan haddana aan dhinacan kala aaday magaalada la yiraahdo Goldogob baan asar galay, markaas calankii Soomaaliya oo meel suran aan ku arkay. 3 maalmood baan hoos fadhiyay calanka Soomaaliya, macnaha jacaylka aan u qabo. dhalinyarada xagga ka timid aniga ila macayhina dabcan waa wada sidaas oo kale. haddii aynu mid noqonno oo aynu iska dayno qoqobka oo aynu isu jiidhnaxno oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay dareemaan xabashidu dadka ay gabdhaha ay kufsanayso iyo wiilasha ay leynayso inay walaaladood yihiin, axmaarada waan iska celin lahayn. gabrana muuna Muqdisho dhex fadhiyeen 24 saac muuna madaxdeena ku dharbaaxeen. waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee daayarta ee meeshan fadhida, dhalinyaradannada Itoobiyada faraha badan ee 100 milyan la dagaalamaysa inayna nagu dhowranin oo waanu ka mudanahay ay noo hiiliyaan. sidaasaan ka codsan lahaa meel kasta ay joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed. waan soo koobayaa anigu waxaan jeclaan lahaa erag khudbadii yareyd ee Cabdiqani Gees Cadde haddii aan jaanis u helay inaan tix yaroo gabaya ka sameeyo. anigu waan ka soo horjeedaa maamul goboleedyada sidoo isaguba sheegay. tixda yar waqtigu ima saamaxayo, laakiin tix yar baan macnaha ku taageeri lahaa. musuqa iyo allow maasuqyada madaxa ayaa gooya, majuusin kalkaalyadan ayaa mar wada laaya, maamul gobolada baas allow yaa mawdu wada keena, allow yaa majuusigan gabraa maalin naga dhoofsha. gaalkacyo mooskay dhigeen yaa mar naga qaada. gaalkacyo waa laba la igu yiri oo macnaha waa la kala qaybiyay. gaalkacyo mooskay dhigeen yaa mar naga qaada, mandheeriya allow gaarisana madasha yaa keena, midab waxana calankeena guud yaa meel walbaba taaga, Muqdisho allow yaa jigjiga meel isugu keena, allow yaa Hargeysa la macaamura la'aan jooga, allow yaa mataaneeyo way kala maqnaayeen. macnaha Muqdisho, jigjiga, Gaarisa, Hargeysa kulligeed iyadoo mid aynu hal meel ku wada joogno. sidaas anigu aad iyo aad u jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, aad iyo aad baa sidaa u jeclaan lahaa. muuq wanaag goday magan alle yaa xorriyad siiya,
soomaalidan mariilka allow yaa midnimo siiya allow yaa dhammaanteed xorriyo wada mihiibsiiya allow yaa mas-uulkan heliyo maxamed noo daaya waa farmaajo insha allah isu keenkeeni doonaa salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu